بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل كسد كسجنتهين آدي أدبر السلامينا. وحفر حد يشرف إنه إن الله كلنا حال أبور أبوان عنب جولد ونوين وكم قاعدة هو يتأكل كوب عنب جولد مجال هرجسان كله كل ماي دوان وحلا في لينا كم من نقطة كوح إن شاء الله تعالى تيجي دونتها وكخيب جل دونتها برنامج كبلارن الصومالي ويك فيستيفال كدعي دونا دالك إنجليزكا فرحت بيت إن الله كلمو عنب وأنا كنت برنامج كان أو كوبان أو نشعل هاي سوق كوبان حطني لينو سيف عنه قبل إنه عنب جولد واطمة يسوقان تكلك سنة إسلامية سي نسوق شراء قبيضة يمنصوين يولي بها ساعة كلا دقن كلا حديرة أنا أقول عنب جولد سود ويو عنب سود وإدو المركورة روح يا سيخ عايش قلت عنب جولد aad dad ma hadsan tahay bismillaah marka hore horta mahad ilaahay baa leh marka xiga waan adan ku mahad celinaya aad baad u mahadsan tahay Cabdi Shakuurow marka anigu canab guuleed hadaan ahay waxaan ay hooyo waxay ahayd reer Soomaaliland iyo reer Djibouti ah waliba hooyo Soomaaliyeed guud ahaan marka waxaan ahay hooyooyinka anigu waxaan ahay gabadh horta marka hore dhalashada reer Soomaaliland waxaan ku dhashay gobolka Daadmareer gaar ahaan magaalada Laanmilaaxo meel waxay ka sokaysa waxaad ka Soomaaliland Itoobiya waxaad ka Soomaaliland Itoobiya maxay Soomaaliland iyo Itoobiya u dhaxeeyo laakiin xagga sokay Soomaaliland meel baan meelahaas ku dhashay marka waa taa halkaasaan maxay taas adigu deegaankaasaan ka soo jeeday marka haddii baydankeeda leeyahay waqtiyadan dhashayna kulay waa dhowriyay lixdanaadkii dumarka waxa la yiraahdaa waxa la ogol yahay haday fartan jir yihiin 25 iska sheegta inkastoo rag iyo dumar ba bahasha dadaan cidi ogolayn waqtiya dhowriyay lixdanaadkii aan dhashay marka maxay ahaydeen anigu dee horta waqti badan ma hayno waa taariikheedu waxaan intaas u badan tahay waxa marka halabuurkayga kollay dee dadka Soomaalida waxa la waa bado maxay ahayd qof walba hibadu way ku jirtaa waka waxa tan ku socdayna ku diin raahdo goormaad is ogaatay ama canab guulid is ogaatay inay halabuur tahay aad ma hadsan tahay horta waxaan ka soo jeedaa faami wax tariya labada dhan aan ka hida qawaba gaar ahaan hooyaday aabahay ayeeyaday hooyo ayeeyaday aabo ayaan ka soo jeedaa marka faamigiina wax tirtiriyo adna wax isku dayaysaa balaad wax tiraaho marka anigoo 12 jira ayaan isku dayay inaan wax tiriyo habeen aroos la joogayo ilmaadeeradayo anigu waxaan ila guuleed Maxamed ila daahir Maxamed oo gabi jiro heesi jiray ayaana isirbaad halka wax yar ka tiraa marka wax yar baan tiriyay iyadoo layga filayna reer maxaa meesha soo joojiyay dabeetana de sacab baan helay iyo maartay dhiirigelin badan markaas aan sogaaday midhaha ma xasuustaa midhaha hayo wax yar baan ka xasuustaayo erayada horu baxay kuma ag wareegay ama way iska aliftaa ama ka sii xasuusta marka gol ciyaareed waxay hayd aroos la fadhiyo oo gaaf oo laga gabiyo oo laga buraanburayo de hawle ka socoto marka waa taas waa dhex gashay goormad u xubsiibatid wadee halabuur aad noqotay dee midhaha yani ana horta maxay ahayd waxay yar sameeyay way jireen laakiin xaqiiqada marka uu soo noqdo 1989 ayaa maansada ugu qiimo badan aan tiriyay aan isleeyahay maasooyinkaaga ugu qiimo badan too maxay ahayd ka soo jeeday dareen dhab oo la yiraahdo qaybta nolosha wiil barbaar ahaan isxulanay oo deemaka de hooyaan ahay laakiin waqtigaas aan de maxay isjeclaanay oo doonay inaan reer wada dhisno oo waxaan ka filanayay ka soo bixeen ayaan maansada ka qoriyay baashana waxay qiimo ku leedahay marka wax soo riixa wax naga maqashay aad muhiim u tahay inaan wax ka maqalno maansadaas maansada lafteeda maadaama ay dee dareen ku timi oo de halkii laga dhaqaaqay wax yar baynu ka maqlay wax yar ka dhageysanaynayo horta inta yar hore tudco hore aad qaadana aad waa qisada iyo la yaab uu sayo gurine marna waa qaflada iyo naxdina qaawana bidkoode qorraxdii dhacdiya waagu way kala qaloocaane
qosolka iyo farxadaheedu waa qaba soconayna marna waa qabo iyo nimcada la isku qofle waa waqti yar oo kooban qof walba wixii loo quruqay u helaya laakiin ujeedadu halkay taala waa meel xasaasiyad badan leh marka wiilkii markaan safgaran weynay ayaan raggii baan kala xushay kala xulashadii gayaankaa timi wax badan baan soo tiriyay waqti badan marka waqti badan la hayaabaa kaas la baadi goobaya marka waxaan halkanaan ka dhaqaaqaya oo ahayd iyadoo halkii duducdii aan ku socday waxa weeyaan qayliyeysa waxaan iyo makara ciiqa racankii qomamadan hadhow qiran lahaa qaladka aan geystay ka qadbaa igala roon runtii inaan ka qaarkiisa qiyaas kooban tiro go-an haddaan toban ka soo qaato sagaal buu qalbigu diidayoo qaandacoon jaree balanqeexo kuwa qursadaan qaadan kari waayo qamrada iyo alkoolada kuwaasi qurqurinaayo may qaadirkeen wixii uu xarimay kuwaa uu dagayo mooday qamrada iyo alkoolada kuwaasi qurqurinaayo qaad iyo hadduu buuri cuno ama saqiiq nuugo qalbigii inuu qooma yahay waa mid loo qiraye gabdha aan qaadi loo gelinin buu qolala jiifaayo qalbigii inuu qooma yahay waa mid loo qiraye qurun iyo ilin lagama karo qorxun dabaro hore gabdha aan qaadi loo geynin buu qolala seexday quwaalow allahayow ninkaa nolol hanoo qaybo garmaqaate keligii qumanan garanin qaynuunka qalaf iyo midaan nolosha qirin qiimo waxay leedahay oo qalloocan oon lala heshin dabacu waa qaybi oo aan qadarintana aqoon qawla kugu deeqin oo haddana qab weyn iyo kasaba kabir isqaadqaada qoysina gumeed buu ka yimi aan qorsho lahayn quwaalow allahayow ninkaa nolol hanoo qaybo qalbigii aan daacadi ku jirin qoonjinaa gale qayaaniya midkii been yaqaan ama qur soo gooyey qabri inuu gelaayo mar raba dhimasho qoondaysa qaadirkii abuuriya midaan qirin rasuulkeena oon qawl ilaahayna baran diinta waa lagu qaboobaayo oo quruxdii dhaqankeena iyo qodobadii tuuray quwaalow allahayow ninkaa nolol hanoo qaybin qaab miskiin midkii lagu xantay qaba waa sii liita qorigiisa un baa ra kale dhayaan u qaataay qarandida sideedu ka yahay doodra qaybsado inkastood qotamisood rabtana qayrkii inuu raaco ama aad xil qarisood ammaan qayba ku hagoogto meel unbaa qalloocdo hadhow waad ka qanacday quwaalow allahayow ninkaa nolol hanoo qaybin malaa 9 nin weeyaan markaa ka bogan mayno insha allah anabi markaa tiriraysay waxaa muuqata waxaa qeexaysay inaad 10 dadka uga tagto dareenkaa bisuu ahaa horta marka ugu horeysa 10 kaana isku dabiibin waxa weeyaan markay culays badan ku soo wajaho waa inaad cid aad adigu sidiiq moodayso kula ciirto marka haddii aan cidi agagaarkaaga ka dhaweyn waynaanada adigu baadi doonto tad maskaxdaada dib u tuujiso oo aad wax ka baadi doonto dabeetana anigu horta waan isku dabiibo waan ku bogsaday wiilkii dee aan isdaba soconayna waa ku joojiyey inkastoo in badan uu soo yar noqnoqday marka laakiin qorshe nololeedkaygii unbay aniga taasi ka dhalatay laakiin waxay noqotay aayad dadku leeyahay maxaa kaaga soo noqotay ficilin maansada gabayga markaad samaysay maxaa ficilin kugu soo noqday maansada markii aan anigu diray horta waxay igu soo noqotay xaggii bulshada horta markii hore maan shaacinin wiilka anagu arina dhex martay baan u qoray markaa falcelin isagiiba waxa uu ii soo sheegay mabaan moodayn aqoontaadu in halkaa gaadhsiisantay arrintaydu waabay sii culustay halkaasay maaragtay markaa isaguna maansuu tiriyey markaa maansadaa waxaan ka xasuusnay midaan uu qalbigu raacay aan kuusan garan waayey qotonkeeda way gaabantahay qoriga luumaayo ha yeeshee qofnimadeedu waa lama qiyaasa waa falcelintii waad ka soo gudubtay maansooyinka kale ee markaa kugu soo xigay taas dhacday ku timi maansooyinkii kale kule waad sii dhex gashay way kuu furantay markaa wallahi mimaka halkaa kuma tira koobi karayo waxaa ku xigtay maanse la idhaa calaf waxaa ku xigtay waxgarad waxaa ku xigtay galad hooyo waxaa ku xigay dhaqangoob waxaa ku xigay dhambaal baal dahab waxaa ku xigay dhambaal waxaa ku xigay haasawo gobanimo adigu haasawo gobanimo heesii ugu dambeeyey wuxuu ugu dambeeyey maasooyinkii ugu dambeeyey laakiin maasooyinka ilaa dhowr iyo 20 weeyaan markaa imaka halkan tirakoob kuma hayo sidaa unba kolba dabeetana wixii taabto umaan ka hadla canab dadku hal abuurka qofba bad buu ku badanyay adu badeed u badan tahay aniga hal abuurkaygu gabaygaad u badan tahay dumarkay gabayga iskuma fiicna la oran jiray waa la oran jiray waa la caburinayay waa la maxay dumarku waa gabi jireen waqtiyada fog haddii aan sii tixraaco shams xaaji cabdille xasan ayaa kamid ahayd oo gabayga gayaanyada lafteedu ka hadashay
أنا waxaa jirtay ayaday caasha awaada ku jaale oo iyaduna shiinka ka gabayday shiinku waa waxyaabaha adag ayuu ka mid yahay markaas haddaan laba erey ka soo qaato waxaan ka xasuustaa gabay ay tiriso shiinka laba gabay oo ayaan hayaa mid markay gabowday ayay tiris isagu gabay buu ahaa way buraaburi jirtay inta badan badan bay ka hadli jirtay marka ما شهمة غير هبل نكى شاك لو دوبه وحبا محي قلا لا تلمام مايو ما شهمة غير هبل نكى شاك لو دوبه ما شرى يستهر فارحي لو شربين أي وميا أنا وشفران شلي ما بيرودي شو دين يحرق ميا تضاد وشو ما لقى مركا يعني دوما كوا قبل يشرين لكن حرقة كوا يسوي يشرين حقا يا برامر كوا وقعوا حقا برامر كوا لاحق لكن أنت دم دول قاعد وقصو الدور اللي واتن كات سنة ماسو إمسا قبل دور إيش طبعا وقبل دور يتم بعض قبل وقبل هذا العادي راي ولا هي لدي وين يتم وقبل وهي بروح أنت على سنة يمك هنا بيد الله هو يلادي سوتها أنا ما مغشيصه أنا مغشيه واسح فرتها دمرك waxay lahaayeen way gabi jireen laakiin si kale gabayga u soo gali jireenoo waxay lahaayeen luuq iyaga u gaar oo ahayn rag hoyaalay ayay odhanayeen soo maaha dumarkuna waxaan jiray hoobalay oo heeg godka maxay heeday badda dumarka iskale saasay gabayga dumarku waxa marka taasad ugu aqaysa marka maasada la yiraahdo dhaqango inta ugu dambeysay ducada ayaan soo qaadanaynaa marka waxaynu oranaynaa allahayo gacmaha hoosane baraka aan goorin hobalayo heede nogeli rageniyo kuwan haatan garan weynay hobalayo allahayo gacmaha hoosane baraka aan goorin hobalayo heede nogeli iyo gabdhaha guudka fidhanaya hobalayo heede allahayo gacmaha hoorsane baraka aan goorin hobalayo heede nogeli gurboodkiyo dhalaan guriga noo jooga hobalayo heede allahayo gacmaha hoorsane baraka aan goorin hobalayo heede nogeli daruuraha giblana guudka naga maydha hobalayo heede goonkooday xareed galaclehiyo rayska barayeesha hobalayo heede angufaaca xoogliyo lahayn gaydh wax naga laysa heede kulo walahayow nasi gacani wataaye hobalayo heede gunti ma isdhaafiyo allow garawgu no beermo hobalayo heede kasinkana allow nooga yeel midhaha gaxdooda hobalayo heede oo maalka naga gudhan allow godod ku soo jooji hobalayo heede amiin ilaahay naga aqbal waxaad u socotaa ingiriiska ana guuleed dadkii ku sugay maxaad ula tegaysaa waxaan ula tegayaa bushaariya reeray waa hagaag dee hadiyadna waa sidnaa waan gatay oo hadiyad waa sidnaayo dee maanse halkan ku qoran baaba ahayn maxay ahayd hadiyadaad sii waday hadiyadaad sii waday wax yar naga maqashin marka
waa maase ciyaareed haye hey hey hobara hobara hobeyo hey hey hobey hala warka mansaday hey hey walabu kala horeeyay hufnida hadalka qaarkiisa hey hey walabu kala horeeyay hey hey anahigiyo hankaygiye hey hey hobey halka sare ma halabsaday hey hey hobey hoostana masiixigo hey hey hobey herka dhaxan sanayay hey hey hobey hoye hadhac qabow badane hey hey hobey mahuraanki abahay hey hey hobey halyaygii rageeniye hey hobey hidadhaalaad hablayag maashada waxa la dhaha hidadhala hobey hidadhaalaad hablayag hey hobey hal daryo how la soo xulay hey hambal iyo salaan hiboye hey iyo ducaha ma lagu sidoye hey ayaan dadka wada huwinayay ma jeceli inaan dee wax badan aan adee adig waxaan jecela dee in wax badan lagaa sugay iya iga heega dhici laakiin waana dhasiinaynaa waad dhasiinaysaa canab guulad markaad aad eegto hal abuurkaaga xageed isku tirisaa dee heerka dhexe sooniga ila heerka dhexeen heerka dhexaan higsanaya hayne hufnida hadalka qaarkii halabuurka maso hufnida hadalka qaarkii halka dhexe ma halka heerka sare ma halabsado hoostana ma siixigo heerka dhexaan higsanaya ha gunaanadka maxaad ku dhaafaysaa dadka gunaanadka dadka waxaan ku dhaafayaa insha allah maase yaroo dee la yidhaha waxgarado waxay malaayada qudheedu dee jacaylka kama marna dee inkastoon hooye ahay noloshii waa jacayle ha dee haddana maxay ahayday bahalkaas qudhiisu dhadhankiisu waa la isaga wada baahan yahay waayo dee waa ta la yidhaha cirada ma yaqaano caasho soo ma saasaynu odhan jirnay soo ma marka haddii aa la yidhaho waxaan ku dhaafi doonaa intaa yaro jacaylka kusaabsan intaa yaroo dee maxay ahayday dee aniga imaka waxba ii qaban maayo laakiin gabdhaha soomaalida dadkii lu daweynayaa ha dadkeenu dawo u yahayo dee waxaa isleedahay qolyaha kaa dambeeya si wanaagsan reerahooda maaragtay dee hawlaa maaragtay hawla dhaqmaa aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay intaasaan kusoo gabanaa barnaamijkii koobnaa waa cabdishakuur xaaji maxamed muuse oo si heer sara idin salaamaya xarunta dhaqankii magaalada hargeysa ku sugan iyo ciise oo isaguna duubista qaabilsanaa ilaahay gacanta ma gooyo sida fiican wuxuu u duubay filimka waxaan jecelahay kulle intaad daawan doontaa canab guulada ingiriiska joogta fursad bay idin tahay inay idin imanayso bandhigyo kala duwan bay samayn doontaa waqti badan baad la qaadan doontaan waad la caawin doontaan Somali Festival bay kasoo qayb geli doontaa buugga dhan maansooyinkaa bay sidataa way idinka qabdiri doontaa kulle wixii su'aalo dhaqan ku saabsan waad weydiin doontaan oo fursad bay idin tahay la kulantaan waa hooyada Soomaaliyeed dhaqankana de magaceeda kala dhaqanka weynka hooyo dhaqanka xambaarsan hablo badan fursad ay u tahay maansooda ku jirta ee casharka inay barto intaas ku dhaafi doonaa. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.